Bismillahi Raxmaani Raxiim. Mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay caawa maxaa ka dhacay suuqa cryptocurrency 10 Oktoobar 2025. Waxaa dhacay burburkii ugu weynaa taariikhda soo mara suuqa crypto hal maalin ama saacado gudahood lacag ku dhow 19 bilyan ayaa laga tiray ama liquidation lagu sameeyey. Hogaamiyaha crypto ee Bitcoin wuxuu hoos u dhacay qiimihii oo joogay in ka badan 14 boqolkiiba. Ethereum ayaa isna hoos wuxuu ugu dhacay ku dhowaad ilaa iyo 10 boqolkiiba. Altcoinada yaryarka waxay hoos u dhaceen si aad ah, qaar ayaa hal daqiiqo gudahood ku lumiyey 40 ilaa iyo 70 boqolkiiba qiimahooda. Meme coinska iyo kuwa yaryar ee aan projectyada ku dhisnayn ayaa ah kuwa jugta ugu weyn ay soo gaartay oo ilaa hadda soo kabsala. Maxaa loo sababeynayaa hoos u dhaca ku yimid suuqa intaas la eg? Lambar 1, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay canshuur boqolkiiba boqol ah in lagu soo rogay badeecooyinka ka yimaada waddanka Shiinaha. Lambar 2, Bitcoin wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay all time high 126,000. Lambar 3, suuqa dahabka oo gaaray heerkii ugu sarreeyay. Lambar 4, dadka future-ka ku trade gareeyo ee leverage sare isticmaalay markii ay arkeen suuqa in uu bilaabay in wax yar hoos u dhac ah kadib newskii. Taas beddelkeed suuqa ayaa dabin u dhigay, si toos ah ayuu u jabiyey boosaskoodii ama stop losskoodii. Cidna kuma fikirin in suuqa uu heerkaas gaari karo. Maxaa loo aaneynayaa arrintaas? Waxaa loo aaneynayaa waxaa ka mid ah arrimaha shiddoonka ee ka taagan waddanka Mareykanka. Warar kale oo aad u xooggan ayaa waxay sheegayaan in laga yaabo inay jiraan manipulation ama weerar qorsheysan ee sameeyeen kooxaha waaweyn ee whaleska iyo exchange-yada qaarkood. Waa maxay maamulka qarsoon ee whaleska? Whalesku waa koox aad u xooggan oo haysto lacag aad u badan suuqana dhaqaajiya. Sidoo kale waa koox abaabulan oo sameeya boom and doom, kor u qaadid qiimaha kadibna iibin degdeg ah. Maxaan ka baranay wixii dhacay? Waxaynu ka baranay in suuqa cryptocurrency uu yahay volatility ah, wax walbana laga filan karo. In suuqa crypto uusan weli gaarin heer decentralized oo weli yahay centralization, mid la maamulo kaas ay maamulaan kooxaha waaweyn sida big institutionno, whaleska iyo exchange-yo, ayagoo suuqa la mid dhigay suuqyada kale ee ayaga ku jiraan sida stock market-ka. Sidoo kale dhacdadan ayaana bartay in coinska qaarkood ama tokenska ay yihiin kuwo laisku halayn karo oo soo kabasho degdeg ah sameeyey, halka kuwo kalena ay yihiin kuwo aan laisku halayn karin sida kuwa meme coinska. Maxaa inala gudboon? Ugu dambeyn, suuqan waxa uu leeyahay faa'iido iyo khasaaro. Please inta aadan suuqan gelin lacagtaada bilow kooris waxbarasho adiga oo ka qaadan karo SFC School. Mahadsanidin. Waa kugu soo celiyo walaal Liiban.